السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدوادا داوديال دقيستيال أصحابتين خالقة كسدوادا جنال كينا هان إيمان وعنيقو أولاشين حنان دقن هالكانا قدوانا يسانوا جنال كينا هان إيمان وعدارب إناقل سعوتان maantay waxaan idin wadnaa qisadani waxay ku dhacday gabadhani waxaan u tagi jiray ayay leedahay sheekh si aan u yeesho uur kadibna waxa igu dhici jiray waan suuxi jiray waxaan soo kici jiray aniga oo tabcaan ah waatan qisadii oo inoo bilaabato gabadhani waxay leedahay waxa hooyaday iyo aabahay ayaa kala tagay aniga oo yar kadibna ma dhibaatada soo ma gaaran qofaan aniga ahayn sababtoo hooyadeynu waa i guursatay aabahayna wuu u guursaday anigana waxaan ku soo koray guriga awowgay aabahay dhalay oo meeshaas ayaan si rafaad ah ugu soo koray hooyo la'aan iyo aabbo la'aan anigoo ah weliba gabar aad u yar kabacdi arintaas markii ay dhacday markii aan soo weynaaday oo aan gaaray 9 sano ayaa hooyaday maatay oo ay i kaxaysatay waxaan ku soo koray guriga hooyaday iyo waliba ninka hooyaday qabana wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan oo bilaadan nimadiisa aad u fiican tahay ilaahayna ka cabsanayo waxay sidaas ahaataba guriga hooyaday ayaan ku noolay ilaa aan ka soo gaaray 16 sano markaasna aan guursaday oo uu imaaday nasiibkayga gabadhan waxay tiri markii aan guursaday kadib wax ilmo ah ma aan dhalin waxaan ku daalay dhakhtar iyo meel walba oo aan ka raadiyay cilaaj ama daawo sida uu wareegay oo dhakhtar walba aan u tagay qarashkii nooga dhamaaday aniga iyo waliba ninkeyga markii dambe 8 sano iyo bar ma aan dhalin wax awlaad ah 8 sano iyo bar wax yar ma aha waa dareemi karnaa dhibaatada ay leedahay iyo waliba dadka hadalada ay ku hadlayaan waxay tiri 8 sano iyo bar ka bacdi ayaa waxa ay imaaday dad mar walbana dadkaas hadaladu way dhigi jireen laakiin aniga ma rubaysan jirin waxa la dhahay nin boqol u talisay qofka markuu jiran yahay waxa imaanayo 100 qofood oo talinayso qof basi ayuu qaadayaa cudurkaaga iyo daawadaada midba waxay tiri gabadhani dadku waxay ugu dhihi jireen waxa laga yaabaa inuu sixir ku haayo inay il ku hayso inuu saan ku haayo ma u tagtid sheekh ma u tagtid fulaan ma saan yeeshid aniga laakiin waxaas ma rumaysan jirin oo waxaan is dhihi jiray maadaama ahaa gabar wax baratay oo jaamacad dhameysay waxaas ma aaminsaneen oo waxaan dhihi jiray maya dawada waxay agtaalaa ilaahay ka sukoona dhaqaatiir ayaa jirto aan u tagaa dhaqaatiirta waxay tiri waan ku daalay dhaqaatiirtii 8 sano iyo bar sidaan dhakhtar ugu wareegayay lacagtina naga dhamaatay dulqaadkina ka dhamaaday ayaa markii dambe waxaan is dhahay bal maad samaysid waxa ay dadku ku sheegayaan oo aad sheekhu u tagtid waxa laga yaabaa inaad heshid cilaajka ama dawada raadinaysay soo waxay ii noqotay halkii ugu dambeeyay ay leedahay gabadhan waxay tiri waan tagay oo waxaan u tagay sheekh markaan u tago mar ale iyo markaan u tago ma aqaan wuxuu isiiyo ama wuxuu igu aqriyo ogaalka ayaa iga tago oo waxaan noqdaa qof suuxsan aan ogaal lahayn inta ay meeshaas ku jirto oo dhan markaan soo naaxana waxaan dareemaa daal iyo kor xanuun iyo jajab gurigeyga ayaan waxaan imaadaa anigoo ogeyn wixii dhacay oo aad iyo aad u daalay waxay sidaas ahaataba maalin maalmaha kamid ah ee sheekhay ugu dhahay waxaan dhahay waan daalay intaan wax ii sameynaysay wax xal ahna ma haye maxaa jiro markaas ayuu wuxuu ugu yiri ha ka walwalin aniga ayaa ku sameynayo ina uur yeelatid hadalkiisu waan ka shakiyay waxaan dhahay maxaa ula jeedaa markaas wuxuu dhahay adig soo marabtay ina uur yeelataa ana uur ku yeelay waan xanaaqay waxaan ku dhahay waad adab daran tahay waxaan sheekh baan ku mileynay laakiin sheekh ma tihid qoraafaada meesha ku haysaa soo waan ka dhaqaajiyo waxaan dhahay mar dambe aan ku imaanay way soo wacay maalmaha kamid ah wuxuu igu yiraahday hadii aadan ii imaanin oo aadan sida aniga raba aadan ii sameynin waxaan kugu sameynayaa sixir wax walba na waxay noqonayaan eber oo ku sixraya wani ahandaday iyo jabay maalin maalmaha kamid ayaan u tagay waxaan dhahay waxa aad macsan tahay ma aha wax soconayo
waan isku qaylinay wuxuu isku dayay inuu ifaraxumeeyo ama oo ikufsado si xoog ah arinta waxay sidaas ahaataba waan iska celiyay waan qayliyay waana kasoo tagay markaan kasoo tagay ayuu wuxuu igu handaday inuu asaga iyo waliba dadku u shaqeeyo oo dhan sixir ii sameynayaan oo nolosha iga ridi doono balse waxaan dhahay ilaahay ayaa kaa weyn awoodna uma lihid adiga in aniga wax igu sameysid adiga xaalka sidaas u ahaadaba markii dambe waan xanuunsaday waxaana gaaray heer aan habeenkii inta iska baxo sidoo qof waalan oo kaleeto alaamiyada wareego dadkii way igu daaleen familkaygu way arkeen ninkaygu aad iyo aad ayuu i garab istaagay waxaana ahaa qof maqano jooga manogeen waxaan sameynayo maraan qayliyo buuqo alaabta jijibiyo wax walba aan sameeyo iyo maraan habeenkii iska baxo anigoo ogeyn oo hurdaayo waardiye ayaa layga hen jiray ninkayga ayaa waardiyen jiray waxaana wareegi jiray sida qof waalan oo kaleeto dharkaygoo jeexjeexan anoo dacas la-aan adiga qof waalan wuxuu sameeya ayaan sameynayo muddo 4 sano xaaladeyda waxay ahayd sida qof waalan oo kaleeto ninkayga nin wanaagsan ayuu ahaa igamuu tagin hooyadeyna sidoo kaleeto way garab istaagtay oo garabkayga ayay taagnaayeen laakiin wax daawo ma aanan helin ilaa maalmaha ka mid aan la kulmay qof aniga si aad iyo aad garab ii siiyey oo ilaahay ii soo diray qofkani wuxuu ahaa nin sheekh wadaad wuxuuna dhahay maalmaha ka mid ayuu arkay xaaladeyda wuxuu imaaday ninkayga wuxuuna ku dhahay gabadhan sida ay u dhaqmayso ma aha si caadi waxa haayo sixir quraan ayaana ka saaraya waana daaweynaa gurigeeda ayaana ugu imaanaya ninkaygu wuu ogolaaday balse aniga waan diiday waliba ma ogi waxaan sameynaya anigoo dhahay ani ma waalan ma rabi quraan waa ku daalay ma rabo maxay igu sameynaysiin waan qaylinay raalina kama ahin laakiin ilaahay amarkiis ilaahay ayaa awooda wato wadaadku oo imaado quraan ayuu saaray madaawaad ayuu isiiyey sidoo kaleetana wadaado badan ayuu u wacay ninkayga wuuna i quraamiyey alxamdulilah waan reestay miirkaygana wuu ii soo laabtay markuu miirkayga ii soo laabtay ninka aniga sixirka igu sameeyey waa hooyaday dumaashigeed wuxuu la dhashay odayga hooyaday qabo ee isoo korsaday oo adeerkay oo sida aabahay oo kale aan u xishmeenay dabcan waxaan isdhahay hadda u sheegto waxaa laga yaabaa guriga hooyada inaa qarabtid inaa hooyada iyo adeerka ku kala tagaan in hooyada reerkeeda uu baabo waan iska aamusay markii dambe sidaan u aamusnay ayaan waxaa isdhahay maya waa aniga weli ma caafimaadin laakiin inta hore waan karoonahay waxaan dareemaa xanuuno fara badan waxaan dareemaa qarow jiradii waalida ahayd ayaan karoonaaday laakiin weli sidii ayaan u qayliyaa alaabaa u jijibiyaa dabeecadeedu u maqan tahay oona xanuunsanahay maalmaha ka mid ayaan u tegay hooyaday wax walbana waan u sheegay waxaan ku dhahay hooyo ninkaas ayaan u tegay si aan ur u yeesho sidaas ayuuna igu dhahay markii aan ka diidana wuxuu yiri sixir ayaan kugu sameynaya xaaladii aan la noolay 4 sanane isaga ayaa ka dambeeyay oo sidaas igu sameeyay dabcan hooyaday waa ay tagtay waxaana u sheegtay odaygii adeerka ahaa arintii ma aysan sii qaadin muddo 2 bilood adeerkii wuu ka aamusay hadalkaygii waxba lagama soo qaadin aniga waanu adkaysa waay xanuunkii ahaayo iyo waxaan aan dareemay deganaansho la-aanta gurigayga anigoo raadinay inaan oolaad helo ayaan caafimaadkayga inaan dhibaatay gacanteyda ku doontay waan baxay adeerkayga u tagay waxaan dhahay waxaa ii joogtaa maqaamka aabahay oo kaleeto booska aabahay ayaa igu jirtaa iga soo qaad gabadhaada waxa ka qabo arinteeda aniga sidan kuma noolaan karo waan ooyay oo waan ilmeeyay waxaan dhahay please waan ku baryaaya adeer u tag walaalka oo arintan wax ka qabo arintan aniga haysata arin yar ma aha deganaasho ma haysti oo caafimaad ma haysti awlaadna iska badaa hadalkeeda adeerkay waa u baxay wuxuuna u tagay walaalkiis arinta ayuuna kala hadlay dabcan wuu ku inkiray wuxuu dhahay aniga sixir oo ma ihi gabadhaasna wax kuma sameynin isxaan ayaan u sameeyay quraan ayaan saarayay dawadeeda dhex u socotana ayada ayaa ka tagtay
طبعا adeerkii hooyadii ninkeeda aad ayuu u xanaaqay wuxuuna yiri waxaan ku wacayaa booliis waan ku dacweynayaa waxaa meesha ku haysidna waan ka shifayaa haddii adan gabadhaasito waxa aad ku xirxirtay ka furfurin markii dambe ayuu cabsaday uuna qirtay wuxuu igu sameeyay wuxuuna ku dhahay sixir ayaan ku sameeyay si ay u waalato gurigeeda u burburo ugu dambeena aniga ay ii imaado ayadoo uu ulaad raadinayso sidoo kaleetana minka ayaan sixir ugu xiray si inuu weligeed u yeelanin adeerkii ayaa ku dhahay haddii aadan ka furfurin gabadhan arinta aad ku sameysay anigu waan ku dacweynayaa wax walba aad dhahaysana waan duubay codkaagana waan hayaa iyo cadeymihii ninkii sixirkii iyo wuxuu igu sameeyay wuu iga furfuray alxamdulillaah hadda waan caafimaad qabaa waxaana arinteyda usoo gudbiyay si aan ugu sheego gabdho badan oo aniga oo kaleeta ama arintaani ay haysato ama sidoo kaleeta dad fara badan ee maskaxda ka galeen ay ku dhaheen waa inaa fulaan u tagtid ama sheekh u tagtid ama kan u tagtid dadka dhan ma wada xumo laakiin dadka dhan ilaahay ma ka wada cabsanayaan sheekhna ma wada ahan meesha aad tagaysidna ma ogid wixii aad kala kulmi doontid waxaan leeyahay ilaahaga isku xir qof ilaahay adiga kaaga dhow oo ilaahay intuu kuugu tago wax kuusoo weydiinaya ma jiro adiga ilaahaga bari ilaahaga ku xirnow istighfaarta badso dhaqaatiirtana la kaasho oo dhaqaatiirta la kulan wixii intaas ka soo haray oo qoraafaad ahne waxba kuma sameynayso inay noloshaada mugdi geliso ma ogiye marka gabadhan waxay leedahay waxaan leeyahay gabdhaha walaalahay oo sideedoo kaleeto u dhibaataysan please ha sameynina wax aad beri ka shalaayi doontiin ilaahaga isku xir dhakhtarkaada la kulan waxaadna ogaataa wixii ilaahay kuu qoray waxaanan ahayn ma maraysid hadduu ilaahay kuu qoray inaa awlaad dhashid waad dhalaysaa ilaahayna uu ku siinaya hadduu ilaahay kuu qorina ilaahay qur-aankiisa ayuu ku sheegay inuu dadkiisa ama maxaa la dhahaa bini-aadankiisa dadna uu siinayo wiilal iyo gabdho qaarna ugu deeqay gabdho kaliya qaarna wiilal kaliya qaarna uusan ilmo siinaynin marka iimaankaaga ku xir ilaahaaga allahaaga iska bari dadaal ha dadaalin idima dhahaayo dadaala laakiin dadaalkiina uu gelin meel aad beri ka shalayn doontiin waxa maanta ku haysto wax ka badanna hadoonan dadkana isku iimaan ma aha iimaan ma lahan marka wado adiga ka xirneeday oo xun ha isku furina ayay leedahay gabadhan wabilaahi tawfiiq barnaamijkeenana halkaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh